kulan wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan waxaan hawadida ka leenahay maalin wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan wariye ka shaqeynaya muddo dheer telefishinka Al Jazeera ayaa lagu qasbay in shaqada laga cayriyo kadib markii qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka taas oo uu ku difaacayay sharafta haweenka dalka Morocco. waxaa soo kordhaya dhaleecaynta loo jeedinayo maamulka telefishinka Al Jazeera ee fadhigiisu yahay magaalada Doha ee wadanka Qatar kuwaas oo khamiistii hore oo bisha June ay ku beegneyd cayriyay wariye Cabdisamad Naasir kadib markii ay joojiyeen qandaraaskii shaqo taasoo ka dhigan in Cabdinaasir shaqada laga eriyay kadib sanado badan oo uu shaqadan ku jiray. ururka qaranka saxafiyiinta dalka Morocco ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in lagu degdegay in shaqada laga cayriyo taasoo timid kadib markii wariyaha qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka uu ku difaacay sharafta haweenka Morocco. arrintan ayaa timid markii xaqiraad ay sameysay warbaahinta rasmiga ee dalka Algeria taasoo ku eedeysay dawladda Morocco inay ka ganacsato sharafta haweenka dalka Morocco. warbaahinta maxalliga ee dalka Morocco ayaa waxa ay sheegeen in warbaahinta dalka Algeria ay si cad u baahisay war ku saabsan in dadka dalxiisayaasha ee taga wadankaasi dumarka loo geeyo oo dawladdu ay ka ganacsato haweenka. ururka ayaa sidoo kale ku dhiirigeliyay suxufiyiinta ka howlgala janalka Al Jazeera in ay muujiyaan sida ay u garab taagan yihiin saaxiibkood oo sifo sharci darro ah looga eriyay shaqada maadaama uu xaq u leeyahay in uu cabiro fikirkiisa. wariye Naasir ayaa 27 sano ka tirsanaa telefishinka Al Jazeera qaybta Carabiga waxaana uu ka mid ahaa wariyaasha aadka looga jecel yahay wadamada Carabta. kahor intaan la ceerin wariye Naasir oo barnaamijyada iyo wararka telefishinka ka akhrin jiray ayaa waxaa telefoon kula soo xiriiray maamulka telefishinka waxa uu ku amray in uu qoraalka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ka saaro ama uu wax ka bedel ku sameeyo. ila wareedyo ka agdhow wariyaha ayaa waxa ay sheegeen in uu diiday saxafigan in uu bartiisa ka tirtiro warkaasi waxaana uu ku sheegay in uu dhaawac ku yahay muwaadiniinta mar rabo ayuu yiri in aan sameeyo wax khiyaano ah. wariyaha ayaa markii laga eriyay telefishinka waxa uu qoraal uu ku soo qoray bartiisa uu ku yiri waxaan qadarin iyo jacayl aan u hayaa madaxda iyo shacabka dalka Qatar oo aan la joogay 26 sano mar rabo arrin uu sameeyay qof shakhsi ah inaan ku jahwareeriyo dadka waxaan door biday inaan shaqada isaga tago. waxa kale oo uu sheegay inuu mahad celinayo maamulka iyo shaqaalaha telefishinka Al Jazeera oo muddo ay isla joogeen isagoo sheegay in wax badan oo ixtiraam ah uu u hayo maamulka telefishinka. si kastaba marka uu soo baxay warkan ururada suxufiyiinta qaranka ee dalka Morocco ayaa cambaareeyay tallaabada sabab la'aanta ee wariyaha looga ceeriyay shaqadiisii. ururka ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri waxaan u gudbin doonaa hay'adaha caalamiga dacwad ka dhan ah telefishinka Al Jazeera iyo maamulkiisa oo waxa ay yiraahdeen waxa ay abuureen jahwareer xooggan oo soo kala dhaxgalay shacabka labada wadan Qatar iyo Morocco. dadka reer Morocco ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu qaatay wariye Cabdisamad Naasir waxaana ay sheegeen inuu difaacay sharafta haweenka dalka Morocco. maxay kula tahay daawade adna?